Komishanka xuququl insaanka Qaranka Somaliland ayaa maanta si rasmi ah magaalada Burco uga daafuray kulan hawleed lagu falanqeyn doono xuquuqda saxaafadda iyo wada shaqeynta laamaha dawladda. Waxaana kulankani oo socon doona muddo 2 cisho ah loo qabtay gobolada bariga gaar ahaan gobolada Sanaag.Sool iyo Togdher. Waxaana kulankaas uu yahay mid ay ka qayb galayaan booliiska, xeer ilaalinta, maxkamadaha, asluubta, saxaafadda iyo waliba bulshada qaybaheeda kala duwan. Ugu horeynba waxaa halkaasi ka hadlay Cabdiraxmaan Cawil Qaasin oo ah isuduwaha Komishanka xuququl insaanka ee gobolka Togdher. Waxaana kamid ah hadaladiisii sida tan: waxa laga hadlayaa wax xeer ilaalintii iyo booliiska iyo asluubtii saxaafadda iyo aqoonyahanka iyo civil society-ga ayaa doodaya way wada hadlayaan. runtii waxa laga doodayaa waxa weeyaan wixii problem ah gobolka saxaafadda ka jira. runtii waxa weeyaan taasina waa mid aynu doonayno inaynu discuss kareyno oo wixii xal aynu isla eegno. maanta waxa halkan uga hadli doonaa noo qolan jadwalka saxaafaddana waa tan dawladda dhista ama dumisa. waxayna leeyahay dad badan baa fadhiya halkan oo wariyaal ah war dalkiina u naxa oo waxyaabaha qurunka ah sheegnine. anagu ka boolis ahaan waxa laga yaabaa xuquuqda lafteeda anuba tiir ka mid ah, waayo qofka bini'aadamka marka ugu horeeyo soo dacwoodo waa halka ugu horeyso yimaado ama marka ugu horeysa la xiro waa halka lagu xiro. sidaa daraadeed anagu kulli waxaanu isleenahay inaanu ka mid nahay tiirarka xuquuqul insaanka tiir ka mid ah. Komishanka xuquuqul insaanka aad iyo aad waxaan ugu amaanaynaa muddadii ay ka furteen xafiiska gobolka Togdher inay wax badan ka bedeleen habsami socodkii xuquuqul insaanka. runtii saxaafad marka laga hadlayna runtii qolo walba qaranka wax gaar ah ay u qaabisan tahay wax kastana dastuurkeena iyo xeerarkeena ay qeexayaan. marka in runtii kulamadan oo kale la isugu yimaado laga wada doodo maxaa caqabadayna hor yaala sidee uga gudbi karnaa. agaasimaha guud ee Komishanka xuquuqul insaanka Somaliland Cabdisamad Sacad Xasan iyo Saleebaan Warsame Guuleed oo kamid ah komishaneerada heer qaran ayaa dhankooda sharaxaad ka bixiyay ujeedka kulankaasi. waa kulan aan ku la faguri doono ku falanqeyn doono xuquuqda saxaafadda wada shaqeynta saxaafadda iyo hay'adaha sharci fulinta. hadday yihiin bilayska, hadday yihiin xeer ilaalinta, hadday yihiin waaxda kale ee garsoorka iyo garsoorayaasha. waxaynu isla eegi doonaa oo halkan wada joogi doonaa haddii ilaahay dhahaa muddo 2 cisho maanta iyo berri aynu falanqeyn doono. markaynu ka hadlayno xuquuqda qofka bini'aadanka ah qaybaha halkan fadhiya xafiis waliba qayb buu ka soo galaa. cid kasta oo bulshadeena wakiil uga ah section xuquuqdii baa ku soo arooraysa. waxaana lagu fulin karaa iskaashi iyo shuruucda oo aynu ilaashano raacno. inteena waxa la isugu soo xulay komishankii iyo hay'adihii kale heer gobol intaasoo ilaa ciidan ilaa garsoorkii ilaa maxkamaddii ilaa civil society-ga xeeraalintii muxuu ahaa saxaafaddii isuduwayaashii inteenaasi waxa la isugu soo xulay aynu halka isugu nimi inaynu sidaynu xuquuqdii aynu u horumarin lahayn, saxaafadeena u horumarin lahayn, saxaafaddii u toosin lahayn, wada tashi aynu uga yeelan lahayn. waa Maxamed Ibrahim British TV-ga Qaranka Somaliland Burco.